بسم الله الرحمن الرحيم runtii waxaan jeclahay inaan community-ga Columbus aan la qaybsado horumarka iyo rajada far badan ee ka socota Soomaaliya maanta runtii dadka warar badan bay ka maqlaan laakiin sida factiga ah waxaan rabaa inaan xaqiiqada u sheego inay wadanka rajo badan iyo horumar badan ay jiraan oo laga sameeyay dhanka amniga dhanka siyaasadda iyo dhanka haday noqon lahayd la dagaalanka al-shabaab iyo in laga saaro deegaanada ay weli gacanta ku hayeen oo dawladana ay lagu fidiyo dawladda Soomaaliyeedna gobolada iyo degmooyinka dalka oo dhan waxaan intaan joognay oo aan ka tirsaneen xukuumadda waxaan xoog saaray sidii loo heli lahaa ciidan Soomaaliyeed oo ka shaqeeya runtii amniga oo hanan kara amniga isla markaana shacbiga Soomaaliyeed ku kalsoonaan kara waxaan ku guuleysanay in aanu dib wadanka ugu soo celino tababaradii dibadda lagu qaban jiray ciidamada oo lagu tababaro xarumaha ku yaala magaalada Muqdisho sanadkii aan soo dhaafnay waxaan tababar ka saarnay ilaa 1800 ciidan ah oo maanta kamid ah ciidamada ka howlgala gobolada degmooyinka ee qayb weyn ka ah la dagaalanka al-shabaab iyo dib uga saarista dhulalka ay weli gacanta ku hayeen marka runtii horumar badan ayaa wadanka ka socda dhismo fara badan baa ka socda diasporihii way ku soo noqdeen amnigana runtii marka dambayso waa soo fiicnaanaya marka diasporaha Soomaalida jaalidaha Soomaaliyeed ee ku nool wadamada adduunka gaar ahaan magaaladan Columbus ee gobolka Ohio waxaan ku dhiirigelinayaa ugu baaqayaa inay dib ugu laabtaan wadankoodii inay ka qayb qaataan dhismaha iyo dib u dhiska dalka inay ay xoogooda isugu geeyaan sidii loo heli lahaa qarannimada iyo dawladnimada Soomaaliyeed loo xoojin lahaa inay xoogooda isugu geeyaan inay dawladana la garab istaagaan shacbiga Soomaaliyeed taageero wax ku ool ah oo runtii wax weyn ka bedeli karta mustaqbalka shacbiga Soomaaliyeed iyo horumarka dalkeenana qayb weyn ka qaadan karta inay ka shaqeeyaan ayaan ugu baaqayaa ilaa iyo hadda runtii diasporaha wadanka ku soo laabtay waxay sameeyeen wax la taaban karo haday noqon lahayd inay dib u furaan mushtaro iyo goobo ganacsi inay furaan shirkado ganacsi oo wadanka wax weyn ku soo kordhiyay dhanka shaqo abuurista iyo maalgelinta intabana marka waxaan rajaynayaa sidoo kale diasporaha ama gaar ahaan jaaliyadan Soomaaliyeed ee Columbus inay qayb weyn ka qaato dib u dhiska dalka iyo sidii loo heli lahaa qaran iyo dawlad Soomaaliyeed oo taam ah runtii oo maanta dawladnimadeena waxay taagan tahay heer guri la dhiso oo qof walba qayb ka mid ah uu keeno waxay ka mid tahay in wadankeena aanu maanta ka dhigno wadan oo qof kasta muwaadin Soomaali uu ka heli karo waxyaabaha ugu baahan yahay kii ganacsi u baahan kii waxbarasho u baahan kii u baahan inuu shaqo helo dhammaan uu ka heli karo waxaan lagu heli karaa in shacbiga Soomaaliyeed intay isku kalsoonaadaan gacmaha ay isqabsadaan ay ka shaqeeyaan maslaxadda caamka ah si loo helo maslaxadda gaarka oo qof walba uu leeyahay waa ku mahadsan yahay Kulmiye TV interviewgan oo fursad ii siiyay inaan shacbiga Soomaaliyeed la sheergareeyo horumarka iyo waxyaabaha dhabta ah ee wadanka ka jira inaan gaarsiiyo message-ka dhabta ah ee wadanka ka socda iyo rajooyinka ummadda Soomaaliyeed ay ka qabaan maanta dalka